السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مبارك. وقت والبد كسجنتينا وقت وهيدين وعناده. ما توحن دونا يا إن إذا لو ذاقو دور قلب وعن شعله ولا بين صوّد الكوبة. إن صومال الحكومة مع هذا البدن هان بوحشة مرخا وحن تسكت يا إن طبعا دقق صوروريو. إن هذان كهر مرة مدو إذا عدها جار كلولي هاي أم إذا عدها إنترناشنال كاسيدا فيها ويا BBC. horta idaacad sideedaba haddii shakhsi uu iska leeyahay waxaad mar walba xisaabta ku dartaa ninka iskale idaacaddaasi ama qofkaas idaacadda iskale ama tv-gaasi waa ganacsade maxaa lagu yaqaanaa dukaankiisaas ama meeshaas uu ka ganacsanaya kambanigiisaasi inuu uga soo xiroodo dhaqaale sanad walba waa inuu ku fekeraa sidee buu ganacsigaagu sare ugu kacaa iyo dantiisa oo kaliya laakiin kama fakaro dan guud sida awgeed ha ka filanin dan Soomaali inuu ka hadlo arinta marka aan u socdaa waxay tahay BBC dad u shaqeeya ayaa madad waxaan arkay iyadoo aad looga hadlayo oo la leeyahay sidan bay sameeyeen waxan bay ku hadleen dadka kuma dheeraanayo mana rabo inaan ka hadlo laakiin waxaan doonayaa inaan isweydiino BBC iskale VOA iskale BBC UK ba ku taala Ingiriiska laga leeyahay Ingiriisku waa ayo Ingiriis waa kii 1884 Soomaaliya goobeeyay dalkeena yimid qabsaday ina gumeystay qofku gumeystay oo ku yiri aan ku xukumo aan ku adeegsado anku isticmaarkii shalay 60kii aan iska kicinay maanta miyuu bedelay fikirkiisii ma dad kale noqdeen maanta ma naxariis bay noo hayaan waa maya waxa laga yaabaa inaad isweydiinayso oo soo kan dadkayga qaadanaya soo kan dhaqaalaha nagu bixinaya soo kan magangeliyo ummadii qaxday siiyay madaya qaxiyay isaga qaxiyay meel kale lagaaga yimid reer galbeedun baa laga soo galay gudaha wuxuu sugu ka diray qabiil wuxuu ku sameeyay federaal wuxuu ka dhex abuuray argagixiso al-shabaab wuu hubeeyaa xagu hubka ka keenay al-shabaab isaga sameeya malqaacida sameeysa Mareykan baa sameeya isaga u diray isaga ka iibiya isaga lacagaha ku bixiya laakiin waa qaab qarsoodi oo aan adiga lagu sheegin markaad sucunto ood gudahaagii islayso dalkii waad ka barakacday isaga dalka inuu ka barakiciyo oo uu ka faa'iideysto ayuu doonayaa dakhligaaga dhaqaalahaaga uu rabaa inuu ka faa'iideysto kalluunkaaga macdantaada hawada free buu ku isticmaalayay muddo 3 sano ku dhow badda free baa lagu marayay kalluunka free baa lagu guranayay yani badda kalluunka kuma jiro intaasoo boqol oo waxba ku jiro oo faa'iido u leh dadka bili aadanka wuu guranayaa free ku qaadanaya intuu ka faa'iidaya ka badan inta yare hooyo ku go'dahe meelaha qaxootiga intuu ka soo qaado dalkiisa ku keeno ku adeegsado aqligaaga dhan ugu ciyaaro sida kubadda adigu 9 bilood ku dhalatay isagana 9 bilood buu ku dhashay waliba waxaad dheertahay diin islaam oo ilaahay xaqiisa ka timi sidoo kaaga aqli badnaada marka kuma dheeraanayo Mareykan iyo Ingiriis iyo gumeysigiisa toona idaacadaha isaga adeegsanaya markaas Soomaalina 30 sano ka badan waxay ku haysaa BBC da sheegtay VOA da sheegtay waxaad moodaysaa wax la yiri waa waxi siday u aamini jireen hadda waaba soo fahmeen baxooga marka ma aha inaad la yaabto maanta qof u shaqeeya VOA ama qof u shaqeeya BBC ba si xun wax u sheegay ama dalka wax xun ka sheegay inaad wax weyn u aragtaan ma aha waayo waa adeegayaal waa adoomo waa la adoonsada adoonnimada dad baa cay u arki karaa inaan si xun u sheegay laakiin adoonku waa qof adiga ku adeego aad adeegsato adeegi macnaheedu waa adoon dadka marka u shaqeeya waa nala Soomaali waa nala dub waa nala diir waa nala af waa nala diin laakiinse fikirkii ra'yiga ay xambaarsan yihiin isticmaar baa leh sidii isaga marka dantiisa buu adeegsanaya qaabku isagu rabo ku adeegsanaya taamicneedu waxay tahay yani waxa laga yaabaa inaad istiraahdo maxay idaacad samayn kartaa ama ay burburin kartaa xabadna ma ridi karto dagaalna maya adduunka dhan ama dal islaam ha noqdo ama Afrika ha noqoto يعني دل والبا
laamba uga furan afkooda ku hadasha BBC ama VOA maxay tahay sababtu wuxuu doonayaa inuu kooxo ka dhex abuuro ama waddan kastoo islaam ah ama Afrika ku yaala ama uu ka caqli badan yahay oo caqligiisu fooraro ayaa wuxuu rabaa inuu adeegsado qaab yar oo sahlan dadka hadlaya waa dadka dalka u dhashay laakiinse waxay ku hadlayaan isticmaar baa u qoray iyo dadka gumeysta qaabka ugu sahlan isugu dirayaan waxa weeyaan laba waxa ka jira group oo isnacab مثلا dawlad iyo dadka soo horjeeda qolo argagixisa oo ka dhex abuuran iyo qolo kale ka soo horjeeda iyo dad kale oo diidan dadkiibu marka kuwana warbu ka sheegaya qoladan kalena warbu ka sheegaya warka qoladan uu ka sheegaya wuxuu ka xanaajinaya kuwa ka soo horjeeda ka uu qoladan ka sheegayana wuxuu ka xanaajinaya bal u fiirso taariikhdana dib u raac qolada kale ee nacab iyagu waa isku dad wuxuu rabaa marka iyaguna isku jabaan qoladana uu ka xanaajiyo kuwana uu ka xanaajiyo kadibna bari hubka la isku qaato hubkiina ayaa u haya isaga u haya taa macnaheedu maxay tahay marka waa la dagaalanka maskaxda ama dagaalka qarsoon marka BBC iyo VOA ma rabina waqti dheer ku lumiyo in arintii ugu weyneed aan la yaabay anigu waxay ahayd aysan haboonayn inaan la yaabo waayo waa dhaqan caadadooda ah aan ceebtooda ahayn maalin dhexdaas sanadkii hadda la soo dhaafay markii uu ra'iisul wasaaruhu Mareykanka yimi wuxuu la kulmayay jaaliyada ku nool Mareykanka ama Canada ama dadka isugu tagay Washington shirku ku qabtay in maanta waxa horta Ilaahay mahadiisa wax walba oo dhacaya waxay doonaan ha noqdeen waxa loola socdaa si live ah inaad joogto oo kala moodaa maanta qof kasta oo mobile haysta markay dhacdo yar meel ka dhacdo mobilkiisu la dul istaagaya dadka dhan live ba u daawanaya hadda wixii siday u dhaceen sidii inaad joogto oo kala aragtaa haddaadan goobjoog ka ahayn sida goobjoog oo kala u daawanaysa yani wax lagu soo dhoodhoobay been la rogrogay waxa midna yani ma arkaysid maanta waxa dhacday marka yani dadkii ka qayb galay qaybna waaba joogtay qaybtii kalena waxay ka daawanaysay intii joogtay bad qof waliba mobilkiisa intuu la soo kala baxay buu live dadka ugu baahinayay waxa dhacday markay dhamaatay xafladii maalin kadib ayaan waxaan daawaday war ay VOA ka samaysay oo muuqaala oo totally gabi ahaanba ka duwan wixii meesha ka socday marka yani way iska cad tahay kii live kaad rumaysanaysaa ee kan laba casho kadib la soo edit gareeyay la soo habeeyay ma aaminaysid ama maalin kadib waxaan isweydiiyay toloma dad bay intay isu soo aruuriyeen bay meeshii wax kale ka abuureen markii uu shirku dhamaaday marka waa dadka noocaas ah laakiinse ayaan daro meeqaynu dhageysanayni 30 sano ka badan baynu lahayn VOA baa saa tiri BBC baa sidaa tiri maanta aan idinka digaya hore intii uu ogaatay maanta ma aaminsani boqolkiiba 5 Soomaali in laga helayo ku kalsoon maantana waxaan uga digayaa 5taas iyo wixii ka sii yarba inaydan dib oo u dambaysa u aaminin una dhageysan BBC VOA iyo idaacad gaar loo leeyahay toona intaasaan idinka digaya waayo shakhsigu wuxuu ka fikirayaa dantiisa ee kama fikiraya dan Soomaaliyeed dadkan u shaqeeyana duubka iyo dirka sare way kaaga eegyihiin laakiinse iyaga dhaqaalaha meesha ka galay mushaarkooda yarba u dana waxay akhrinayaan iyo waxay sheegayaan xitaa su'aalaha dadka weydiinayaan waa loo qoraa wax walba waa loo diyaariyaa marka la yaab ma laha mana rabo qodobkan inaan ku dheeraado inta aan kaga baxay waxaan rabaa inaan ka jawaab celiyo hadalla la isoo weydiiyo qofku maaha inuu kaliya maskaxdiisa ku socdo laakiin waxa dadku ay ku weydiinayaan waa inaad qiimaysaa dad baa waxay ugu yiraahdeen dawladda waa taageersan tahay kaliya waxaad ka hadashaa wixii wanaagsan ay qabatay maxaad xumaanteeda u sheegi weydaa su'aal baan rabaa marka inaan weydiiyo dadka saas su'aalaha ay soo weydiiyo iyo qof kastoo is weydiin lahaaba waa su'aal macquul ah oo in la is weydiiyo ay habboon tahay laakiin hal su'aalan rabaa inaan ku weydiiyo kow maxaa adiga qaladkaa dhacay markii aad fiiriso 24 saac ee la soo dhaafay marka dib u eegto meeqa qalad bad sameysay hadda ma aha cid inaad mas'uul ka tahay caruurtaada iska iloow waalidkaaga dadka kugu xeeran Soomaali kale cid kale wax u qabanaysa iska daa naftaada kaliya waxyaabaha aad u qabanaysa meeqa jeer baa qaladkaa dhacay adiga wax sameynaya waxa ugu yar koob shahaado karsanaya sonkorta kaaga badata ama caleenta kaaga badata gaari baad meel ka raaci lahayd meel kale qaldan baa laga yaabaa inaad ka raacdaan meeshaan meel qaldan baa laga yaabaa inaad kaga degtay waxba aad iibsanaysay waxa laga yaabaa in wax iska ka doo maray meeqa jeer ba 24 saac ugu dambeeyay qaladka dhacay markaad ka soo gudubtay ma waxaad ka fikirtaa kaasaan sameeyay qaladka kale aan sameeyay qaladka mise waxaad ka fikirtaa imise wanaag baan helay
kolley dabcan dadku waa labada qaybood haddaad fiiriso marka dadka badana nolosha guusha ka gaadha waa dadka yidhaahda imise wanaag baan sameeyey oo ku farxa niyaddana ku dhista wanaagay sameeyeen badanaa dadkaas horumar bay nolosha ka gaadhaan sababtoo ah qofku markuu ku mashquulo qaladkii shalay ka dhacay iyo kii maanta ka dhacay iyo kii dooraad ka dhacay waxaa niyadiisa gelaysa khaladkaasaa samaysay maskaxdiisana kusoo noqnoqonaysa khaladkaasaan galay khalad bay maskaxdiisu sheegaysaa markay sheegto waxay ku sababaysaa inay naftiisu baqdo oo uu tallaabo qaadi kari waayo oo wuxuu shalay sameynayay uu ku dhiiran kari waayo oo yidhaahdo shalayba qalad baad ka samaysae maaha inaan qaado tallaabadan waayo qalad baan gelayaa laakiin haddaad ka waran guulahaaga keliya kor u qaado aad ka hadasho oo adiga oo wixii qaladaad samaysay ay cashar kuu tahay wadan ilaaweyn laakiin haddana aad mar walba wanaagii kuu muuqdo oo aad wanaaga hormariso iyo bositifeka waxaa niyadaada iyo jirhkaaga iyo maskaxdaadu ay si wada jira ay uga jawaab celinayaan wanaagaas iyo dadiilaa gelaysa tallaabadii shalay mid ka weyna waad qaadaysaa horta taasi waa mid qof kastoo inaga midana inuu wanaaga Soomaaliya sheego mas'uuliyad baa ka saaran ogow nafta markii lagu galiyay in amaanay ku ahayd amaana cirka diiday dhulka diiday bila aadan baa qaatay amaana markii la leeyahay wax baa lagu faray naf baa lagu siiyay aqli baa lagu siiyay caafimaad baa lagu siiyay aqoon baad heshay jaanis dad badan oo dalkii jooga ama dad aan fursad aqooneed helin baad heshay adigu jaanisyo badan baad heshay waxaad aragtay wadan horumaray iyo sidoo u dhisan yahay iyo qiimaha dawladnimo leedahay baad heshay dadkaaga uga maad faa'iidin uma aadan sheegin wanaaga uma aad sheegin waxay sameyn lahaayeen uma aad sheegin oo aakhir waa lagu gala xisaabtamaya qof kasta oo awoodi karaya aqoonteedana leh dadkiisana wacyi gelin kara wuxuu sheegi karana waxaan xasuusinayaa in aakhir lagu la xisaabtamayo waxa dadkaaga dheertay laakiin si aad ka xaasidayso bal iska badaayo aad dhinac xuma ugu rogayso aqoontii aad lahayd waxbaad baratay ama photoshop iyo video si loo habeeyo si wax la isugu geeyaad baratay halkaad wanaaga isugu geeyn lahayd bad xumaanta isugu geeyaysa waa lagu xisaabinayaa ogo haddaad la aamusto aqoonta iyo waxa dadkaaga dheertayna waa laga jarayaa ogo marka haddii aadan awoodi karin inaad wax wanaagsan dadkaaga u sheegto waxa ka codsanaya inaad xumaan u sheegin intaas haddaan ka gudbo in hal mar baan waxaan rabaa marka inaan dib idinku celiyo يعني أنيقو إذن ربا إن إذن موجي فرصة عاد هيستان لكن كفا إذن سن لذهين غاركين دبان إذن كعلنا هل سنة بعد مركي دورة شو مقدسة كده عيس الدون كسدابو إنه أرك سومالي إسكده سومالي مال والبوغ لقى مظهر عليه مال كستوى لقى فرح سنة إذا ديلا فربدن بموقنا يستدقوا وي فرحيين الدون كسدابو إنه أرك adduunku sidoo inoo arkay waxay ahayd in idaacado iyo TV iyo cid waliba oo caalamka ka mid ah ay Soomaaliya yaani wax aan dhici kareynin oo kale ay u aragto maxay ula yaabtay maxay uga faalootay maxay uga sheekeynaysay ma farmaajo la yaqaani miya la jeclaa adduunku ma jeclayn mana aqoon hadana ma jecla laakiin maxaa keenay oo dadka soo jiitay caalamka soo jiitay indhihiisa oo ayna soo fiiriyeen oo inoogu soo hogteen oo inooga faaloodeen innagay ahayd wax inagu saabsan dadkeena bay ahayd rabitaanka dadkeenu uu rabay iyo sida ay isugu yimaadeen mabda'a ay ka midaysnaayeen ayaa dadku fiirinayay caalamkuna eegay waxaad marka ogaataa adiga ayaa wax noqon kara shakhsi wax kaama dhigi karo waxaad ogaataa haddaad hal wax ka midowdaan oo aad isugu timaadaan dunidu way ku qadarinaysaa way ku qiimeynaysaa waxbay ku arkaysaa laakiin haddaad tafaraaruqdo waa laga dhex kalluumaysanuun adiga uun baa madaxa la isu ka gelinaya mar walba marka doorashadii ka bacdi hal qodob oo kale doonaya horta xilliga doorashada inaan idinku daro maalintii doorashadu dhacayso qof walba wuu tirinayo qof walba wuu la socday codad badan baa waxa helay ilaa dhowr iyo 30 cod Cumar Cabdirashiid bal tusaale haddaan Cumar Cabdirashiid maalintii la dooran lahaa ka war dhowr iyo 30 ka xildhibaan ilaa maanta xildhibaanadii ku dhex jiraan codadka siinaya Cumar Cabdirashiid haddii dhowr iyo 30 kale oo iyagana la fikra ama la ra'yi ay ugu tar lahayn maanta madaxweynaha qolmaan xusameyn lahaa dee dabadu iska keen raacin lahaa inta yar ee dhiman oo xaraash lahaa badiyo barina oo isku dar lahaa waayo madaxweynaha dalka ugu sareeyay waxna kama oran kartid faraad ka laaban lahayd indhaha saaga daawan lahayd waayo shalayba markuu ra'iisul wasaaraha ahaa oo badda iibinay waa wada daawanayna waa wada taagnay waa wada joognay haduu noqon lahaa saas oo kale ayaa
ayaad aad u daawan lahaydeen taa waxaa kasii dheer aan rabaa inaan dad badan xasuusiyo oo qabiilku uu cudurku noqday waxa laga yaabaa qaarkiin waxaad leedihiin maantaba xasan cali khayrena waa ra-iisul wasaare isaguna ra-iisul wasaare waa shalay yaa yaqaanay yaa ka sheekayn jiray xasan maalin walba xasan cali khayre waa la faaniyaa waa laga hadlaa waa la ammaanaa because wuu mudan yahay wuuna mutaystay laakiin qoladiina xanuunsan maxaad tidhahdaan kan iyo kan maxaad ku kala dooranaysaa adeer taageerada micna ay ku timaadaa iskama timaado micna ay ku timaadaa qabyaalad kuma timaadiyo qabiil qof qabiil taageera haddaad aragtana 5 qof kama badato dadka taageeraya waayo 5 qof ay ku qabiilka oo waliba inta damiir kale ay ku qabiilka ay ma taageerto inta daciifka ah baa taageertay ku qabiilka xataa qabiilka dhammaan ma wada taageero taageerana lagu helo qabyaalad hadduu maanta soo bixi lahaana wax laga yaabay inaad oran lahayd maxaad taageeri weyd qabiil lama taageero qofka waxa uu dadkaaga u qabtay baa lagu taageeraa horta waxaan rabaa marka anigoo aanan aad rabin inaan ugu sii dooraado waxaad ogaataa mar walba waxaad ogaataa waxa wax lagu yahay ma aha shakhsigu horta wax wuu kaa dhigi karaa waayo haddii maanta ra-iisul wasaare uu ka ahaan lahaa halka maanta xasan cali khayre ka hadduu cumar cabdirashiid ka ahaan lahaa wax badan lama qabteen inta la qabtay sanadkana laguma qabteen ilaa run baynu isu sheegaynaa laakiin iyadoo taasi jirto oo qofka wanaagsan mar walba inuu dalka hogaamiyo ama ra-iisul wasaaraha ka noqdo ama madaxweynaha ka noqdo oo qof fiican oo marka horeba inuu xilka qabtaa ay muhiim tahay haddana mar walba maxaad maskaxdaada iyo maankaaga gelisaa inaan shacabka uu wax ka dhigi karo wadan shacabkuna hadduu xumaado uu xumaan karo wadan hadduu shacab wanaagsan dalku helo wuu wanaagsanaan karaa hadduu shacab xun helana wuu baaba'ayaa waxaa kaloo jirta dadku khaasatan Soomaalidu dad xoogaa dhinac walba ka dilmay baan nahay kulley laakiinse markii qof ay jecel yihiin ama ay u hanweyn yihiin uu xil qabto tusaalahan farmaajo markii uu xilka qabanayay qof kasta dee wuu iska qiiraysnaa maantana qaar baa kule waanu nacnay dadkaasoo kale markaan yacni tusaale yar siiyo adiga booska madaxweynaha maanta iskee adaa lagu doortay kaba soo qaad madaxweynaad noqotay waa kaagan maanta leh shalay waan taageerayay maanta xildhibaanaha maanta waxay ku hayeen shalay annagaa codkayaga siinay maantana waanu kasoo horkajeednaa waanu ridaynaa maxay micnaha kuwaas soo kordhiyeen hadalkooda nothing waxay soo kordhiyeen malaha hal tusaale yar marka rabaa adiga iska soo qaad marka adigaagan leh shalay waan taageersanaa maanta ma taageersani maan rabaa hal su-aal inaan ku weydiiyo adiga madaxweyne lagaa dhigay dalkaa lagu doortay naf walba ila naftaada laga matalaa ma tihid qof loo waxyoonayo oo lagu soo degayo junuud iyo maxaan ku radaaya askar samada kaaga soo degayso adeegsanaysaana ma jirto dalka waxaad ugu tagtay waxyaaba fara badan waxyaabaad ugu tagtay waxaa ka mid ah sidaan ognahay xildhibaan tuug ah oo dalal shisheeye u qaraab taga oo cumar cabdirashiid bakow ka yahay iyo gruub kaloo la mid ah waxaa ku jira wasiir tuug ah waxaa ku jira askari tuug ah taliye ciidan oo tuug ah gacantaada kuma jiraan madaxweyne hadda la doortay baa tahay waa qofka hadda aan la hadlayo ee la maanta shalayna farmaajo taageeray maanta ma taageeray intaasoo dham iyadoo jirto iyo waliba kumanaan kaloo ka sii badan iyo fikrado laga soo maleego dalal ka reer galbeedka oo carabta soo mara oo Itoobiya soo mara waa fikradiga ka weyn ma ogid wax dhacayana ma garan kartid laguma waxyoonayo laguma waramayo cid kastana adigu gacantaada kantaroolka kuma hayso waayo ma haysatid ciidan dhisan oo daacad ku ah oo ka amar qaata it's very hard Soomaaliya yani waqtiga ay soo martay iyo xaaladda ay ku jirto askariga wuu isqarxinay waad ogeydeen lacag yar hadduu al-shabaab siiyo wuxuu doonu sameynaya xaaladda noocaasa ayaa madaxweyne lagaaga dhigay meeqa qalad bas leedahay baa kaa dhici lahaa meeqa jeer kamaad soo kabsateen waxyaabaha hadda dowladdan ay kasoo kabsatay mana aadan qaban lahayn dowladdan waxa ay qabatay runta haddaynu isu sheegno marka waxaan doonayaa inaan kusoo gebagabeeyo adigaagaas dhaliisha sheegayo dalkani adigu wax kugu yahay waa qof kasta oo Soomaaliya 12 milyan ee Soomaalida ah oo ka midowda wax walba oo qabiil meel iska dhigta oo hal mowqif yeelata hadduu khalad dhiciyo hadduu wanaag dhacana isagu diyaar u adalkiisa wuxuu qaban lahaa isagoon qofna xisaabinaynin waayo dalka lama kala xigo nin madaxa iyo nin kale iyo nin kursi ku fadhiya mid aan ku fadhiyeen ma kala xigaan dalkan waa isugu mid qof kasta waxa lagu leeyahay waajib saaran
waayo adiga ayaa u baahan nabad, adiga ayaa u baahan nolol, adiga ayaa u baahan horumar, adiga ayaa u baahan iyo ubadka aad dhali doonto wadan nabdoon oo degan inaad hesho. waayo weligaa qaxoonti ma ahaanaysid. haddaad adigu dhimatana kii kaa hadhay aad dhashay waa inaad wax uga tagto. qof kasta oo inaga mid ah intaas hadduu aamini lahaa dalkan mar horeynu dhisan lahayn. mana aha wax 2 qof iyo 3 qof iyo 10 qof toona u taalee dhowr iyo 10 milyan ee Soomaaliyeedba u taalaa. marka waxaan kusoo gabagabeynayaa ma rabin inaan hadal ku dheeraado 20 daqiiqan sii maraya. waxaan rabaa inaan kusoo koobo kaliya xoogaa talooyin kale oo isoo gaadhay baa jiray oo barnaamijkii 2 toddobaad 3 toddobaad oo tagay oo axada aan qabtay oo dooda ahaa Soomaaliya iyo Somaliland ayaa doodo fara badan yacni qoraallo fara badan la iiga soo diray. maalintii dhood waxaan idin lahaa waan joojin doonaa waayo dad baa qaarkood waxay leeyihiin dadka Soomaaliya waa mid ma aha inaad tiraahdo maanta Soomaaliya ma laba mise waa mid doodaha noocaas inaad qabato maaha. Soomaaliya mid taanu aaminsanahay anagoo oo waqooyi ka soo jeedna Soomaaliya midnimadeeda raadinayna. dee kuwa kale oo waqooyi kala soo jeedanay Soomaaliya kala godaabay aaminsan yihiin. qof kasta horta inuu maskaxdiisa waxa ku jira haddii wax sax tahay inuu walaalkiisa kale ka dhaadhicin karo ayaa muhiimad u tahay in la wada hadlo ayaana ka wanaagsan. wax walba xal baa loo helaa haddii la wada hadlo. fikirka qofkani muxuu uga dhaadhacsan yahay waynaad u sharaxdo. maxaad adigu ku diidan tahay qofkan waynaad u sharaxdo adigoon qaylin, adigaan habaartayn, adigaan been sheegin, adigaan indhaha iska tirin, adigoo runta mar walba kusoo ururinaya hadalka. marka iyadoo ay dad jiraan dhahaya jooji haddana dad kale waxaa jira odhanaya inaan sii doodnaa rabnaa waxyaabo fara badan inaan isku sheegno ayaa muhiima. sida awgeed 2 isbuuc oo soo socda hadda insha Allah inaan qaban doono ayaan rajeynayaa hadduu Ilaahay yiraahdo. qof kasta ama midnimo aaminsan ama kala go aaminsan waxaan rabaa oo laakiinse wax macquul gal ah doonaya inuu dadka u sheego. macquul gal ah dadkan uu ka dhaadhicin karayo qofkii haya isoo telefonkiisa ha ii soo diro. insha Allah waana sii wadi doonaa ilaa 2 toddobaad oo soo socda. marka dhamaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa. waxaan kaloo rabaa walaalaha Somaliland dega hal qodob inaan u sheego. halka qodob aan u sheegayaa waxay tahay hadaladiina waxa kamid ah maxaad 2 qof oo Somaliland u doodsiisa. hadii 2 qof oo Somaliland hadduu midna Somaliland aaminsan yahay midna uu midnimada Soomaaliya aaminsan yahay muhiimadu kuma xidhna qofkani meeshu ka soo jeedo waxa ku xiran tahay fikirka. waxaanu ka hadlaynaa waa fikir maxaad aaminsan tahay weeyaan. hadda Soomaali waan aaminsan tahayna fikirkaaga xor baad u tahay. hadda Somaliland aaminsan tahayna fikirkaaga xor baad u tahay. waxaan kaloo idin sheegayaa horta Somaliland iyadu hadday rabto inay go'do iyo hadday rabto inay isku darsantaba iyada dhexdeedii baaban mowqif kaliya lahayn sida wada arkaysaan. waa Ingiriis ba u bixiyay magaca Ingiriisku bixiyay ee Somaliland ah wuxuu u bixiyay oo isku qoqobay 5 gobol. waa gobolka Awdal, Maroodi Jeex ama Hargeysa, Togdheer, Sool iyo Sanaag. maanta dadka ku nool Awdal saqiir iyo kabiir waxay aaminsan yihiin Soomaali weyn oo mid ah. dhibaato kasta ku dhacday dadka gobolka Sool ku nool waxay aaminsan yihiin saqiir iyo kabiir iska daa shakhsi isagu kursi la xijaclaysanaya. saqiir iyo kabiir waxay aaminsan yihiin Soomaali weyn. dadka Sanaag ku nool saqiir iyo kabiir waxay aaminsan yihiin Soomaali weyn. dadka Togdheer ku nool magaalooyin badan oo kamid ah ay Buuhood ku jirto ila Buuhood Togdheer weeyaan waxay aaminsan yihiin Soomaali weyn. marka dadkii yaa wax ka gadi kara ma 2 gobol oo waliba haaf sii kala gobol iyo badh maxay noqon kartaa. waxyaabo badan ayaa u baahan inaad idinka laftirkeenu aad dib isu weydiisaan intaydan cidna xaganin cidna maagin cidna ku qaylin bal adigu dib isu xisaabi. dib intaad u xisaabtanto see wax socdaan Somaliland see wax ka socdaan wala soo weydiiso. marka wax aqliga gali kara oo saliima oo dadkuna ay kula fahmi karayaan ama la isla ogolaan karo qofkii ka doodayo waxaan ka codsanayaa telefonkaaga inaad igu soo dirto dhinaca messengerka. intaasaan ku soo gabagabeynaya aad baan idin salaamayaa.